intaasoo halyay baan hayaa hilimadoodiiye u hadaafe aakhiro raggii howlkarka ahaaye halkanna caawa kuma koobi karo qaar kala hadhaye hambal iyo salaam baanu diray hadiyad waayeele ha yeeshee waxaan la hinqaday oo hadalkay geeyey hawd iyo hargeys iyo togdheer hilinka la ascaano hobya iyo nugaal hoose iyo haaman iyo doollo hoosada sanaag iyo barbaran hogobyadii awdal ka hayaantay maansadii dhulkay hoyga ku lahayde ka hayaantay maansadu dhulkay hoyga ku lahayde inkastoon hogaanshiya abwaan haybna ka ilaanin weli ma haya qaar la higsado garaa halkoodii iyo hunguraan hantaa taca hayaa hoday dadkii qaare hunguraan hantaa taca hayaa hoday dadkii qaareen sidii neef dhurwaa ku habsadoo mici ku haylhaylay sugaanta geerida heshiiyo dacowga hiigaya hadba waxaanu saafaacidaan sii hudda ogeyne afkuse hadal madaaye hadduu soo hirmaca uurku heeraabta nimankii horaa laga halqaataaye hanfada naftiisa hawirow hubucu waceebe hanfada naftiisa hawirow hubucu waceebe nin waliba wuxuu hidin kariyo hadafka weedhiisa rag hubsiina badan baa jiray oo nabid halmaamayne wayse dhaqan habaabeen raggii goolka hayn jiraye wayse dhaqan habaabeen raggii goolka hayn jiraye ninkii gabayga kala hadiye hibada loo siiyey hablihiiyo markii hooballada laga horraysiiyey hirwa kama duwanaa maansadii haybadda lahaydee maxaan haatan kaga daalayaa maan iskaga hoydo maxaan haatan kaga daalayaa maan iskaga hoydo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدشيني لباد إيو مرتشرف كوباد أبوان كوين عانك الصوماليات أبوان أحمد علاء ديال قرانه وأينو هل كان جلسة قوة قادني madashan oo caawatii labaad ah waxay runtii aynu soo qaadanay gabayo kala duwan mawduuc ahaan isku dhow haddana kala duwan caaw waxaynu u ballansanayn madasheenii labaad iyo gabayada qaybtii labaad inaynu halkan ku qabanno waxaa kale oo inala jooga cabdalla xaaji cismaan oo isaguna barnaamijka inoo daadihin doona caawa insha allahu tacaala cabdalle fadl. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد aad baad u mahadsan tahay waa sidaa aad sheegtay oo caawana waa qaybtii labaad oo aynu ka qabanayno gabayaageena caanka ah Axmed Colaad Qorane gabayadiisii saad la socoteenba qaybihii hore dhowr gabay oo gabayadii maaragtay qiimaha lahaa ayaynu xagga hore ku soo qabanay sidaan nii ballan qaadnayna waxaan ku talagalnay inaan qaybtan dambana aan ku qabanno qayb kale oo iyaduna muhiima oo gabayadii Axmed Colaad Qorane ah bal hadda Axmed Colaad oo adoo kusoo dhawaanaya caawana halkaad nooga bilaabaysid aadaan marti kuuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما حدثنتهين مركو هراء أدي إلهي قدرنا intii itaalkeena baynu loodin doonaa bal harta waxaan ugu horreysiinayna haddii ilaha idhaahdo caawa gabaygii ugu dambeeyey gabay aan tiriyo ku magacaabay saadaal haddii aan in yar fasiro maan hadal yar ka horreysiiyo wuxuu ka dhashay duufaantii aadka u farxadda badnayd ee ka curatay duwalka carbeed qaybo ka mid ah duufaantaasi oo la tagtay carabtuna waxay ku magacowday rabiic alcarab gugii carbeed digteetaradii waaweynaa barasaabada uu ahaa
wadamada gaalada waaweyn ee dunida maanta u digdiglaysa oo amarku taaglaysa reer galbeed iyo reer bari kaa tidhaahdaba nimankii barasaabadaha ee caalam islaam u fadhiyey laba ka mid a ayay la xinqatay markii ugu horreysay oo ahaa Zayn al-Caabidiin bin Cali iyo ninkii la odhan jiray Xusni Mubaarak. marka arrintaasi oo aada iyo aada farxad u lahayd aniga xaggayga, aniga oo rajaynaya in ilaahay kuwa ka khayr badan uu islaamka ugu bedelo oo muslimiinta dulliga ka qaada. muslimiintu saad ogsoon tihiin xiliyadan dee gacan gaalaynu iskaga jiray, ummaduna hadday madaxda ka xumaato way jabtaa. markaa gabaygaas oo ka dhashay markii ay labadaa la hinqatay, haddana aan rajaynayay markaa inay inta hadhayna salaabeyn doonto duufaantu, ayuu aan inoo bilaabayaa caawa. waa saadaal waaya. sahay male adduunyadu ninkii dhabisu siiyaaye, sahay male adduunyadu ninkii dhabisu siiyaaye, sakaliya marbay kula gashaa surin cidhiidhyoone, rag badan bay sursuur kaga tagto seegay marinkii. sahay male adduunyadu ninkii dhabisu siiyaaye, sakaliya marbay kula gashaa surin cidhiidhyoone, rag badan bay sursuur kaga tagtay oo seegay marinkii. inkastoo lagu samafalo sare lagu qaado, inkastoo awood saayid iyo sada lagu buuxsho, si kastaba u eego wakhtigu malaha saaxiibee sabankiyo dabayla socdiyo sawaxba wacayne. sabankiyo dabayla socdiyo subaxba wacayne, waxay suursanaataba markii laysku sawliilay salalba asnaamtii ku dhacay. sabada nootiile badhna waa socdeen, qaarna waa sii salsalayaane. beedhna waa socdeen, qaarna waa sii salsalayaane. sagaaradu waxay qari tidhaa saalo la arkaaye, sasabiyo adduun lagu siroo lagu sabaaleeyo, sixiriyo waxay faal rogeen haatan socon waaye. sixiriyo waxay faal rogeen haatan socon waaye. saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii ee kumuu seexansayn caabidiin. saymuhu galaye sinadiyo khamrada waa fasaxay sidii ataatoore, salaad iyo wacdina waa nebcaa. soonna ma aqoonee sunno badan ninkii soo tukaday saamax ma lahayne, sidaa wuxuu ahaadaba markii salabka loo qaaday saqdhuxuu ka guday dowladiyo sarihii dheeraaye. seeqdhaxuu ka guday dowladiyo sarihii dheeraaye. saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii. masar waxaa sacsacay khaayinkii simirta dheeraaye, marna kama siqsiqinoo hintiya siica falastiinee sodohbuu yuhuudow ahaa saalax waa tuhwe. sodohbuu yuhuudow ahaa saalax waa tuhwe. suways iyo ismaaciil iyo sarakicii guusha bulshadiisan eegnayd, markay isaga bihii tuurtay wixii suuqa qaahira ka dhacay waa la socoteene. wixii suuqa qaahira ka dhacay waa la socoteene. sareedada adduunyada ninkii sacabka loo buuxshay sidii arkasayntale, wuxuu salow abraaraba sanka laga muday, howlyaraanuma saqliyeene. sanka laga muday howlyaraanuma saqleeyeene. saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii. saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii. safkan waxaa ku xigi
liibigiisa dufka ahaayee sifihiisa kuma koobi karo siinka maadsada ee saalaxal wareer buu qabaa saadu maqasheene sidii oday sirqoobiyo marbaa sabi la moodaaye marna waa sikraan iyo islaan saaray oo kale marna waa saciimiyo halyay soo majeestaahee dadka inuu samaystay la tahay saamina u helaye balse inuu iskaga suudalo iyo seefta inuu qaato waa nimaan la suurayn karaynoo saliiliyahe waa nimaan la suurayn karaynoo saleeliyahee saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii saadaashay muuqatiyo shicib ka soo yaamay saxalkii ilaah naga dulqaad barina saaraaye insha allahu waa suulayaan saawaha ee seetada in loo wada jaraa waa sidaan rabay seetada in loo wada jaraa waa sidaan rabaye saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii sabuulka ka badan wiilashay cadow ku soo reene iyagaa sirdoonka u ahaa saancadda hagaale siyaayeeda mooyee nin kale amar ma siinayne sariiriyo furaashyay noqdeen bahala seexdaane sariiriya furaashay noqdeen bahala seexdaane nin siyaasi sheegtiyo raggii saxayay towxiidka badhna waa soleen qaarna waa wada sadqeeyeen isallaankii kufrigu fuuli jiray seesku ha u dumoye sallaankii kufrigu fuuli jiray seesku ha u dumoye sumcaddii islaamkay dileen sabirna waayiile sumcaddii islaamkay dileen sabirna waayiile mar haddaan wanaag laga sugayn lana su'aalaynin nin kastoo shareecada sarriyey saayiraad ma lehe nin kastoo shareecada sarriyey saayiraad ma lehe sahankiyo horseedada baxiya sagaalka hore ayaa socda waxa la moodaa inaan sadugu laabnayne sumalladan guma isugu suntaday siiqu ha u baxee saddexdaa sidkaye waa murtida surimadeedii sancaba halka jooga iyo ciraaq sabad xumaa joordan iyo horarka reer suuriya saaqidka aljeeris safehiga marookaa ku xigiisaan isleeyahay safehiga marookaa ku xigisaan isleeyahay sidaase kuma idlaan dowladii saaruqda ahaayee soddonkiyo siyaadada hadhiyo sohdima hagaalku sidii rimay sidkeedii go-aad sabanka moodaayee suudiga in loo wada eryo bacadka loo saaro oo talada laga saanyado oo laga sabooleeyo ilaahay sidaan ku arki jiray waa ku socotaay ilaahay sidaan ku arki jiray waa ku socotaaye sunnihiiyo qur-aankii kufriga laga sarraysiiyey iyagoo khilaafadiisi doosaanad iyo xoogle sabankiyo xilliga soo socdiyo saa dambe andhowro sabankiyo xilliga soo socdiyo saa dambe andhowro aada iyo aad baad u mahadsantahay axmedow gabaygan saadaal alla ilahay saadaashii ayuu noqday oo horta axmed gabaygan wuxuu kaga qayb galay amba si raggii hore oo kale xilligaa waxa dhacaya ayay gabayga ku taariikhayn jireen marka gugan loo bixiyey gugii maaragtay ribac alcarab gugii carbeed gugii carbeed loo bixiyey gugii islaamkan rajeynay imkani maydeed way soo socotaa saadaaliso way isdaba socotaa marka isaguna wuxuu ku taariikhiyey maanta gabaygaasoo weliba wax gabaygu wuxuu soo baxay sida ka muuqata maalintii xusni mubaarak la eriyey maalintaasn gabagtiyey laba unbaa markaa dhacday oo socday kuwa kale waa kuxigii ku yidhi saadaaliyana sidii ilahay aqbalo laba way socdeen
kolka intii kalena saadaash insha allah waa sidaa uu sheegay waa isdaba jirtaa qaar khayr badan ilaahay ka rajeynayna sidii ilaahay aan ku naqaanay insha allah soo sheegay bal hadda cumar hadda ma cabdalla waad mahadsantahay oo runtii gabayga da-diisii horta waxuu tilmaamaya aad bay kala wen yihiin taariikhdii uu soo baxay dee raggan uu tirinayaa way joogeen oo may meesha ka tegin marka waxay kutusaysaa runtii guud ahaanba horta gabayaagu sida uu saadaasha u tilmaami kara amba uu runtii dee ilahay awood ugu siiyey waa xikmad iyaga u gaara laakiin waa qodobka la cuskan kara la odhan karo runtii waa usluubada ugu waaweyn in uu da-diisiiyo kala weynaadaan waxaan uu ka hadlaya manaha dee libya iyo tunis iyo may jirin markaa dhacdadani may dhicin yaman iyo waxayna dhicin libya tunis masr ma dhacday marka sidaa cabdalla sheegay insha allah intii kalena jira waa caynkaa haddii alla yidhaa sidaa uu saadaaliye ilaahay hay nooga dhigo dee ninka gabayaagahina sida axmed oo kale inuu isballaadhiyo oo arrimaha maaragtay adduunka islaamka iyo dhibaatooyinka haysiiyo wixii jireen markaaba inuu taarikhyo ka hadlo oo wax waajib ku ah qof kastoo islaam oo yani ilaahay uu siiyey aqoon waxaynu u tallaabaynaa axmedow haddii alla yidhaha gabaygii labaad ee aada inoogu tala gashay bal hadda caawa bal gabaygan labaad waxa gabay maandhaweyte xuseen uu codsan jiro odhan jiray gabaygaa kusoo dar marka gabaygan gabay xilli dee imka waxaan filaya ninkaygaa imka ciroobi dee dhalinyar aha markaan tiri waaya dee wuxuu ahaa berigii markii xabashida deedo gacan gala ee 18 halkana dagaalada baani ka dhaceen xaggaa loo wada qahay jabhadihii soomaalida ee qabaa'ilka ku dhisnaana ay xabashida u kala tartamayeen ayay ahayd marka gabayga kilaal oodan baa la yidhaahdaa kilaal oodan marka in kilaal oodan la galay ayaan berigaa isukay muujisay marka waa 89 ayuu gabaygani ahaa gabay kooban bal isagaynu ku hinjirin haddii laha yidhaahdo markaa goboladii waqooyi buu dagaalku ka bilaabmay waxaana markaa ii muuqatay inuu kolley waxa dee Soomaaliya haddii maradaadu imika ay dhinac ka gubato oo aanad diyaar u hayn inaad baktiiso dhinaca kalena dee waa wareega markaa awalan dawaatii gobolada dhexe meeshan maxaan leeyahay inter gobolada imika Puntland la yidhaahdo marka dee jabkii Soomaalida waa tii markii hore dagaaladu ka bilaabmi jireen markii dambana waa kii goboladii waqooyi usoo wareegay halkaa markay taagneyd markaa inuu koonfurna u gudbayo way iska cadayd sidii xaaladu socotay sidaad sheegto maradaada haddaad baktiin weyd way wada qabsanaysaa marka gabaygan gabaygaas waa kilaaloodan baa la yidhahaa waayahay gabaygaa kilaaloodan kariimow allahayow adaa kibir lahoo weyne kariimow allahayow adiga kibir lahoo weyne kali taliya muruq kaashadoo kubadu weynaatay karti male addoonkaa laxayo kor isu qacdaay karti male addoonkaa laxoo kor isu qaadaaye kurkurada adduunyada khalqigan kala kulaalaya ku waliba wuxuu kayd dhigto iyo kadab wuxuu quuto kimisti iyo arsaaqdooda waad wada ka faysaaye kimistiyo arsaaqdooda waad wada ka faysaaye kudladahan la koolkooliya kaahin iyo fooxule kaabiga wax nagu soo hayo dunida keenayso kutubiyo kasmaba kaashadoo koobi mahayaane kamaalkiya awoodaada iyo kaafinimadaada kollay anigu kuma koobin karo kaafka maansada ee kulligeed adoo keliyabaa kownka maamulay kulligeed adoo keliyabaa kownka maamulaye kontonkii kifaaxii xornimo kicitinkii gaalka kabaqaadadiibaa ka hadhay kaday dadkoodiiye iyagaa karkaarkiyo ku jiray kaalintii sare kabaqaadadiibaa ka hadhay kaday dadkoodiiye iyagaa karkaarkiyo ku jiray kaalintii sare kax abaara iyobay tubnayd
milic kaliileede inkastoo kacaankii cabbaar hore u kaynaashay kaba tolihii waa kii ka kuday kobaan la egayne kabatolihii waa kii ka kuday kobaan la egayne waxay dunidu nagu kaalisiiyo kooska wixii yiilay kolayada kolkii lagu gurtee kiishka lagu qaatay kolkaasay iswada kaaluftoo la isku kaarahay kolkaasay iswada kaaluftoo la isku kaarahay balse talada lama kaadinoo looma kuurgeline sidii dhari kulay lagu shiday oo kariya qiiq keenay kolba waxaanu kuurkuursanaba ka ceedad weyniye kolba waxaanu kuurkuursanaba ka ceedad weyniye kolse hadday axmaar kaashatay oo cadow oo xabash la kaalmaystay oo cadowgu kaasuu ahaa loo kaltamay maanta kilaal oodan iyobaa la galay karintii cebeede kilaaloodan iyobaa la galay karintii ceebeede kolkaan eegay sida loo kama-ay loona kala giigay kurbadiyo colaadaha kordhiyo kaarka nagu baahay kulku waa kuwada baahayaa labada kaymoode kulku waa kuwada baahayaa labada kaymoode sidii kelebka waan lagu wado hilibu ka hayo kufrigiyo kuwuu dhalay intay daba kadlaynayso weli waxay u keenaysan tahay koox cadow sidii kelebka waan lagu wado hilibu ka hayo kufrigiyo kuwuu dhalay intay daba kadlaynayso weli waxay u keenaysan tahay koox cadow dameerkaba kirbaa lagu yidhaa lagu kaxeeyaaye kasi maayo hadal aan la barin kicitinkiisiiye annakana tolay keliyabaa kiciisa reeraaye dadka kale caqlu kaashadaa ku hiyi guuraaye inkastoo kitaabkiiyo sunnaha loo kamila maalmo kas xumiyo qabiilkama karto male ka sorayne dadka kale caqlu kaashadaa ku hiyi guuraaye inkastoo kitaabkiiyo sunnaa loo kamila waayo kas xumiyo qabiilkama korto oo male ka sorayne kaftan ugama jeedee dantaan kaab isleeyahaye waxba gabaygu yuu ila kufine waxaan ku soo koobay kudkiibaaba kaba loo tolo koray kudkiibaaba kaba loo tolo koray halkiisiiye bal inuu kabaalkeed jabay oon kadabu meel oolin kun waraabe oo kala yar baa ka intanoo galaye naga kici allahayow ifkaynagu kadeedeene naga kici allahayow ifkaynagu kadeede cabdalle runtii horta gabaygan wax badan baa ku jira waxyaabaha ku jira aniga iga muuqda waxaa kamid a horta waa kaafley oo xuruufta adag ee de nin gabayaaya mooyaane ninkan aanu ka gabyi karin ayuu horta kamid yahay dhinac wuxuu inaga tusayaa tawxiid oo waa wacdi iyo ummadda tawxiidkiida caqiidadu kala hadlaya dhinac wuxuu inaga tusayaa bulshada muslimkii siday u aamintay cadowgeeda ama aanay uga warqabin aanay uga dareen haynin macnaha dhibaatada uu ku hayo ama uu la maagan yahay run ahaantii waxaan kaloo baraarujin lahaa bayd ku jiro oo mahmaha soomaaliyed baa jirto ladhaa kabatalow markaasaad ka gudday meel aanan ku dirin baad ka baxday halkaasaad ka gudday marka taada ayurtayaani horta u qaadan in qof la sheegaye horta mahmadaas gabayagu daba socda markuu leeyahay kabatolihii waa kaa ka kuday kuban leegay baydkaasi horta saasaan u baraarujinaya marka cabdil fadal kusoo dhawow
aad iyo aad baad umahadsan tahay. waa sidaad sheegtay oo gabaygan wuxuu ka mid yahay gabayada sareeya marka kaafka laga gabayo. yani erayadeedaa kooban, gabayguna uu kooban yahay. meeshase waxaa ku jirtay dee taariikhdii xilligaa waxay dhaceen dadku ay cadow kaashadeen. kolka haddana dee su-aal bay isweydiinayaan dadkiio maxaa dee loo kaashaday cadowgii baa imanayso. kolkaa laakiin waxaan la iloobeyn de xilligaa talaxumadii maamulkii jiray, dadkii jiray ee xukumaya dhulka, dadkii maamulka hayay ee dawladda ahaa, talaxumadeediina iyadana wax kaga dar. waayo dee dheriga maxaa karka ka keena, waxaa ka keenaya kulaylkaa keenay. dhibtii iyo indhalii dhegalii dhalise. saasay bahashu ahayd taarikhdu dee say ahayd in loo wada sheego oo la wada taabto weeyaan. waayahay taa halka aan ku dhaafno. bal hadda axmedow, gabaygaana waan kaa guddoonnay, khilaal oodan waan guddoonnay. kii saddexaad weeya waxaan kaa sugno. ka saddexaad insha allah isagana waxaynu ka dhigaynaa xunshu gabay la yidhaha. xunshu cumar iyo waa maqleen mar hore waa duubnay. xunsha la yidhaahda. xunsho waa garanayaayo cabdallo. xunshadu waxa weeyaan baalaleyda kamid tahay marka hore soo baalaleyda waaweyn. hadda waaweyna baalaleyda kan laxiiba baan leeyahay laabta xunshada waa tuubaal caynayna laxiiba baan leeyahay laabta xunshada waa wax rag la ayaa la xamraqaa. xunshadu waa taa marka iyadu hadda waaweyn bay horta kamid tahay, waana bahal yaran casaba la yiraahdaa. hadda markay hilibka kala boobayso iyadu hilibka waxba kama doonato. gudaafadaha iyo guryaha laga guuray iyo meelaha dadku fadhiistaan meelahaasi meeraysatahay wax ka baarbaarataa. laakiin hadda inuu gabayga saynu u wadano xoolo yeelatay waa gabadho waa la guursanayaa, waana la isku haystaa. gabayga waxaan filayaa allahuma salli calaa maxamed inuu yahay 990 baan filayaa. ayaan filayaa 95 meelahaas uu weegyahay. isagaynu iska bilaabanayna marka tusaalooyinkana dee wixii kasoo baxaa gabayga inuu sheegida wuxuu ka hadlayo. tafaasiir badan dee uma sii baahanin, waktigana waa inagu socdaa. xigmadiyo haddaad maxamedow xogiga doonayso, xigmadiyo haddaad maxamedow xogiga doonayso, xadaafiirta iyo waayahaan xalay ku soo jeeday xumadiyo calool xumo qalbigii xasili waaye. xumadii calool xumo qalbigii xasili waaye, haddii xulad la shido waa gubaa xamasta hoostaa leh. xilligaynu joogniyo halkii xaweeye aadan xarbi iyo xigaal kala safta, iyo xaaja go'i weyda xaddi male intii mayd xarkagay xuurta loo wadhay. xaandii male intii mayd xarkagay xuurta loo wadhaye, marka nabadda loo xaadiraa xanan la ogaaye, waxbayaan xabaalaan dhexgelin. waa xantanayaae xakalaan ka faaloonayaa xaal kala jiray. kalaan ka faalloonayaa xaal kala jiraye, haddii xaal walwaalkaba rabbigu xoolo badan siiyo hayska shuqul xumaadee. haddii xerada loo buuxsho oo foqorka laga xaydo, waa laga xishoon laaye xaaji hilib jileeciyo. intoo xaashi loo bixiyo ragunbaa ku xeeraan lahaa, xilana siin laaye xaqiiq weeye soomaali waa xidhidi layeene. xaqiiq weeye soomaali waa xidhidi laayeene, dhulkoo xamash leh xayskooda oo xuliyey daadkiisa, iyo marayarladu xaaluftay oo xaabku ka idlaaday. xilligii la joogaba haddaad xog uga faallooto, xafashkiiyo xashiishkay cuntaa. xuunsha fadhataayee hayska dhaqan xumaatee, haddii xerada loo buuxsho xaawalayu roon iyo intoo xaali loo bixiyo. ninunba intuu meher ku xidho xaas ka dhigan laaye. ninunba intuu meher ku xidho xaas ka dhigan laaye, xoogaaga kii ugu xeshiya qaar xigta u sheegta.
iyo qaar kasii daba xigtiyo qaar xodxodanaya iyo qaar xamaanta u guroo xalaya weelkeeda rag badan baa ku xuurtoomila ayaan laga xigine reen badan baa ku xuurtoomila ayaan laga xigine xallad ma laha maansadu haddaan marag ku xeernayne marka talada loo xaydaniyo xeegad iyo goolka hadba meesha xaabxaab kalaa lagu xaruudaay ba meesha xaabxaab kalaa lagu xaroodaye dameer malab xambaarsane hadduu xilisu soo taago ha iska arag xumaadee hadduu xoolo bixinayo ragunba intuu duubu xidho xarunta geyn laaye reegunba intuu duubu xidho xarunta geyn laaye odayada xagaasaday markuu xaymanka u buuxshay isagoo xariir lagu dadoo la xaragaysiiyey fardihii xawaarayn jiriyo xamarka dheereeye odayada xagaasaday markuu xaymanka u buuxshay isagoo xariir lagu dadoo la xaragaysiiyey fardihii xawaarayn jiriyo xamarka dheereeye xa kastaba u eego markaa dunida xuuraanto xigsbad iyo xigmad iyo nimaan lagu ogeyn xaajo lagu doorto oo aan inuu ammaanada xafido xaasho laga yaabin oo inuu adduun badan xaslado wuxuu sulduubayaa xilka qaranka waa laga xidhaaxay intuu yahay xilka qaranka waa laga xidhaaxay intuu yahay xasad ugama jeedee runbaanku xadilayaaye xisbadiya inaynaan lahayn xeer wax kala reebaa waxa xaajigii hore bedelay xulufadiisiiye sidii bay xafiisyada raggii xadayu haystaane oo weliba xeebigayiga xabashi joogaaye weliba xeebigayiga xabashi joogaaye hal xaaraana tuuggii xaday ee xere uu ageertay inay nirig xalaala u dhashaa waa xadiis jabane inkastuu xafido sadambaa laga xabadhaaye inkastuu xafido saadamba laga xabaadhaaye xidaarkaba baleego cidaawow xidigiyaaye xagaag iyo gugiya waa yaqaan xagaha jiilaale haddaan sumal idaa laga xirayn xaal la qabanaynin xag loo dayaba xayntii yarayd xerabasow maaha xag loo dayaba xayntii yarayd xerabasow maaha haya cabdalle aada iyo aad baad umahadsan tahay horta xunsho waa sida aad sheegtay oo gabayga xunshaad ku halqabsatay laakiin de qotadiisu waxa weeye dowladnimadii iyo maamulkeedii siyaasaddii iyo dadkii maamuli lahaa iyo in weli aada canaan ujeedinayso oo le dadka weli ciddii maamulaysa dowladnimadii ma joogto oo xitaa malaha haddii dameer xoolo sidaa la arkana maamul baa loo dhiibaa ka hadii wax laga helayo keliya marka waa gabay aada u qoto dheer maxaad ku dari lahayd ereyadiisuna ma adko waa ereyada ereyadiisu ma adka waa la wada fahmayaa inkastoo da-yarto kolleyba ay u badan tahay in wax badan loo jilciyo gabayga waa saaad sheegtay runtii wax badan ayuu xambaarsan yahay o dee wuxuu kutusayaaba bal horta wax kale ha jooge ninka dan guud haya ama xoolo umadeed haya haddii uu isticmaalo in maxaan ku dhahday isagana meel kale uun ay wax kaga maqan yihiin oo magaranaysaa weerarku meel kale kaga iman doono run ahaantiina waktigan iminka dambe sida aan loogu qiimeyneynin qofka garashadiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa ee loogu qiimeynayo muxuu hayaa iyo muxuu bixinaya ayuu gabayga kutusaya marka kolley waktigu waa inagu kooban yahay gabayo badanna waa inoo hadheen madasheenina bartankeenu kaga jiraayo haya axmed gabayga ma intaan gelin waxaa kaloo tiraa soomaalida xunshada sidii aad adeer u tilmaantay gabaygii uu ninkii hore tiriyay ka laxiiba baan leeyihiin laabta xunshada
dhanka waxa la yiri xunshadu waa tabuga caruur jecel baa waa caruur jecelaha oo xayawaanka meesha caruurteeda dhigato ay ku xafido waa buuraha dhakooda sartaba xayawaanka kale ma dhiga baa ma dhigan baa leedahay oo dhanka way ku amaananta xaggan kalena waa ka liidataa dhankan kalena adiga dhakay ka liidataa waa ka liidataa to kalena way sheegaan odayada reemiga oo waxay xunshada haddaad xunsha halka dhagax ku dhufato oo lugta ka jibisay dhacdo xunshada oo dhan baa soo ururto muddo yar markay ku urursanaato way la duushaa bay yidhahdaan tii kale oo way isdaweysaa ayay yidhaahdaan waayahay bal hadda iyada halkaan ku dhaafno kaa hadda gabaygii afaraad weeye waxaan kaa sugnaaba axmedo waayahay bal gabay kale oo aan ku magacaabay baaderi ayaa la yidhaahdaa gabaygan waa gabay yaroo kooban laakiin sababtiisii haddaan wax ka tilmaamo inkastuu qodobo dhowra ka hadlayo xilliyada kamida imika sanadkii ma xusuusniye kolley ilaa 2000 iyo meelahaasi mala ahayde adigu nin baaderiya iyo naag baaderiyada oo ingiriisaba hargeysa yimi xilliyadaas dabeeto waxay yidhaahdeen gaaladii ku haligantay dagaalkii labaad ee markii dee gaaladu islaynaysay ilan dadka riye iska ahaayeen xaafad hargeysa kamid ahoo shacabka la yidhaahdo ayaa gaalada berigaa lagu aasay dib malaas dhowrkii sanadood marba yimaadeen waanu ducaynaynaa odayaal masaakiin ahoo askartii ingiriiska ahaa oo xuquuqdoodii waxa uu ka dhacay tuugaasi kuwii u dagaalamay isaga waagii isaga u dagaalamay oo Soomaalida ahaa ayaa ku soo qamaamo mooday inuu lacagtii xuquuqdii u sido dabeed odayaal badan baa meesha ka raacay wadaad Soomaaliyana suuqu ka kaxaysay baaderiyadaasi dabeeto xabaalaha saliib weyn ma iska talaab weyn ayaa meesha ka samaysan oo xabaalaha dusheeda ka qotonta gaalkii iyo gaaladii baaderiyanta ahaa waxay soo istaageen baa la yidhi saliibkii gaaladoodii bay u duceeyeen wadaadkii Soomaaliga ahna dhinacu ku qabtay wadaadkiina waa la duceeyey arrintaa culimo fara badan ayaa masaajidada ka rididay oo ka hadashay laakiin wadaadkii ma garaysanine tiisii ayuu ku adkaystay markaa gabaygan yari isagu sababtaas ayuu lahaa hase ahaatee meelo dhowra iyuu iska marmarayaa mana dheera waayahay weligay xajiin gabayga waan kala xishoodaye weligay xajiin gabayga waa kala xishoodaye xidigiyo waxaan fiiriyaa xaal kusuu yahay ha yeeshee xigba igu hadhee malihi xooxdiye yeeshee xigba igu hadhee malihi xooxdiye xabaalaha markay tuugayaan xilifka shaydaanku xamdi baan raxmaanka u naqa waa xantanayaaye xasanaad waxaan laga helayn laguna xuurtoomo xadradiyo durbaanka u horgalaa xuuxda la hayaaye xadradiyo durbaanka u horgala xuuxda la hayaaye waa xurufsi mawliidkanay xeruhu qaadaane badow xoola haystiyo habraa lagu xaduuraaye mar haddaan xadiis iyo qur-aan xarafna loo haynin bidca laguma xiiqee naftaa laga xoreeyaaye bidca laguma xiiqee naftaa laga xoreeyaaye culimada xumaataa markay madaxda xaabayso ama ay xafiiskiiyo kursiga uxusul duubayso iyagiyo xukaamtuba dulmiga kama xishoodaane sidii faras xawaaraynaya oo xawli ku ordaya iyadoo xujadu muuqatay xarafka jiidhaane balse waxaanay xaajada ku darin xuladkii nareede balse waxaanay xaajada ku darin xuladkii naareede xabashida kolay tahay haddii loo xawila biilka iyo xaar walwaalada kufrigu xeerarka u dhiibto xaq inay yihiin bay walaa xagaf ku siiyaani xabsi iyo nin sheekhoon ku jirin xero rag lootay xabad iyo asaan cidi ku hayn warama xiiraaya ama aan jahligu waa xunye lagu xisaabaynin ama aan xanuun lagu ogeyn oon xisku hallaabin nafta waa inuu ka xafidaa
xumaha waaweyne marse hadduu wixii laga xarimay ka xafidnaan waayo xatooyada wadaadkay bulshadu xaqu malaysaaye xatooyada wadaadkay bulshadu xaqu malaysaaye xadka inuu ka baxay oo kufriga lagu xisaabayo iyo inuu xuduudkiya ku jiro xeradii towxiidka ma xukumine waxaa loo xawilay muxaqiqiintii ma xukumine waxaa loo xawilay muxaqiqiintii xarbi iyo jahaad loo safti iyo goobxin jiri taala sawaariikhda xiintiiyo markay xayata baaruudu gaalada ninkii xoojiyey ee xayda ka caddaystay xadka inuu ka baxay oo kufriga lagu xisaabayo iyo inuu xuduudkiya ku jiro xeradii towxiidka ma xukumine waxaa loo xawilay muxaqiqiintii ma xukumine waxaa loo xawilay muxaqiqiintii xubbii nimaanu haynini waxyiga abid xurmayn waaye mar hadduu shareecada xaqiro xeerna fulinayo oo wuxuu ibliiskuu xardhiya xaashi kala haysto intaasoo xumaataa ninkii lagu xaqiiqeeyey xadka inuu ka baxay oo kufriga lagu xisaabayo iyo inuu xuduudkiya ku jiro xeradii towxiidka ma xukumine waxaa loo xawilay muxaqiqiintii ma xukumine waxaa loo xawilay muxaqiqiintii xaflad faranji iyo meel xiliya xarunta shaydaanka halkaa sinada lagu xoojiye lagu xayeysiiyo culimadu inay xaadiraan waa cilmiga xoore culimadu inay xaadiraan waa cilmiga xoore ha yeeshee raggii xaabi jiray ka xabi maayaane baadari saliibkii xidhay oo ku xaragoonaya iyo caamadii xoojisay waa xadgudubteene dhaantada inaa la xejisaan xaashe ma ahayne xabaalaha nasaarada ninkii xalay ka duubiyaayey mar hadduu xaliimka u bariyey oo lagu xaqiiqeeyey xadka kama tallaabine danbuu soo xatoobsadaye inkastuu sidii xoola diday xera ka weydaartay bal inuu xakamaha dabcay toobadda xusuusto xilligiyo ayaamaa xigiyo xaalada andhowro xilligiyo ayaamaa xigiyo xaalada andhowro waayahay cumar cabdalla waxaan u malaynayaa dee runtii sharaxa markii hore aba weyna siiyey abwaankuye waa sidaa mawduuca uu kaga hadlayay ki waxay ila tahay horta ninkaa odaygaanana saaxib malaha u tahay oo isaga dameelaha kolley gaadhay isagana kolley waxaan malanaya xusuus bay u tahay waxaan runtii baraarujin lahaa beydka maxaanku dhaha xig iyo xoox abwaanku gabigiisa uu kusoo daray da-yarta waxaynu isku dayna inaynu u yareen wixii yar adkani ka muuqato marka dee xigta kole waxaan u naqanaa xigta geela marka mar labaadka la layso ayaa la dhahda wa xigsin waa la xigay abwaankuna uu inoo sharaxi doonaa xooxdana waxaa la xandhada inta kusii jirta intaanu xooluhu aani godlan godolka ka hor ayaa la dhahaa xoox marka xoox baa igu hadhay maantan xig baa igu hadhay malihi xooxdii ka daba socda ayaa cabdillah bal hadda yar sharax haddaad waa asaasun cumar loo dhaaf maayo cumar sagaaf soomaaliga ka yaqaani kolley guud ahaan wuxuu ku socday gabaygu wuxuu ku socdaa waa culimada sidaas oo kale baydho oo maaragtay dariiqii saxa iyagoo arkaya haddana ka yar tallaabsanayo saa uu sheegay dee isa wadaadkaa uu kusoo baxay gabaygi oo kalea bal hadda kusii dheeraan mayno ee waxaynu uga bixi un axmedo ayn ka sugno gabaygii shanaad haddii alla ka dhigo waxaan jecelahay haddii ilaahay inoo ogolaado laba gabay oo kooban oo midina gabaygii tacliinta yahay alla shiinkii subxaanaka ya cadiim waadi xusuusisay warsooniga jeebada igu jiray waayahay
allahuma salli calaa muxamed subxaan allah ilahay baan xilaawin waa sidaas waa yahay gabaygii shiinka ahaa horta gabaygaasi wuxuu ka hadlaya xijaabka haweenka aan sharaxano xogay muqadamaan ka bixinayna gabayga waayo waxaa laga yaabaa ragga inaga aynigeenaas iyo wixii lamida mooyaane dhalinyarada iminka joogtaa markaan gabayguna dhegeystaan inay fahminba wuxuu ka hadlayo waayo wixii aan ka hadlayay berigaas uu ka hadlayay gabayg waa laga soo guuray gabaygan horta waxa weeyaan de waa 8 baan filayaa inuu ahaa 8 ayaan horta tiriyey laakiin markaan dadka u sheegay 9 iyadoo tirsan yahay baa nuqaxi nagu dhacay markaa inta badan aanu taariikh ka soo qaata maalinkan sheego ha markaa xilligaa wuxuu u eegaa xilli kala guuraho haweenka Soomaalidu labiskii hore ee khafiifka ahaa ee jirka ka muuqan jiray ayay ka soo guurayeen waxaan u soo guuriyeen xijaabka iyo dharkan asturka markay in badan ee diintii fahmeen dacwadu xoogay soo socotay in badan soo socotay markaa haweenkii markaa xijaabka qaadanayay iyo dhalinyarada rag iyo dumarba dacwada waday dacayaad fara badan iyo dhib fara badan baa yaa lagu hayay waxaa la oran jiray markaa dacayaadkaasi kuwa dee wadamada gaalada kasoo fulay oo dawladdu soo hadlana dawladihii iyo wixii sii wadeenoo caamada dhigta loogu tuuro oo mufsidiinta iyo faasiqiinta kasii faa'iidaysato oo waxaasay ahayd marka waxyaabaha ka mid ah ay odhan jireen waa kiristano waxay isdadadayaan shaabad baa dhabarka kaga taalla ayay odhan jireen waftiraagiyada waxay dadku hadli jireen waxbay ku qarsanayaan adigu waxyaaba aynaan imkaan ka sharxi karin oo fara badan ayaa halkaa iyo waxdad iyo oo intii magac bedel magacii waxaad shaab loo oran jiray waxdad waxbay dadayaan iyo uur bay qarsanayaan iyo garcabay adigu flagaado fara badan oo qeyr caadi ah propaganda kolka xijaabka ku socday buu ahaa dhalinyarada rag iyo dumar way ku socotado rag iyo dumar buu daacad waa lagu waday idaacadaha waxa ka socon jirtay waa mara ku dhig iyo waa siif labood iyo waa waxan iyo wixii dagaalku yiraahdo waa laga daba oran jiray marka halkan dee saasay ahayd marka bil xaqiiqa waxaan ilaahay ku ilaahay horta ma hadle waafajiyay in fara badan oo kamid ah maanta dib madharka wadankeena ka muuqda waad aragtaa alxamdulillah waxaan aad ugu mahadnaqayaa haweenkii u dhabaraday xumaanta ayaa xumada lagu hayay ee xajistay aqoonadooda ee labiska maartay ee sii faafiyay ilaahay ka abaal maray marka gabaygu sidaasi gabayga waxaan magaciisa horta la yiraahdaa shuushka gaalada shuushka gaalada oo waxaan dee madda ka dhex qaylinayay shuushkii gaaladu waa moogta waa garata maaha gabayguna iska kooban yahay marka gabaygu ma iska bilaabanaa shaxda gabaygu waa yadanba way yara shakaalayde shaxda gabaygu waa yadanba way yara shakaalayde marse hadduu shinkiisii gooshida iyo uurkayga sharcigan ku taageerayaa shiikhay waa hore sharcigan ku taageerayaa shiikhay waa hore shabaabkiyo waxbaa kala dhex galay shicibka qaarkii wixii badowda lagu soo shubaan shaafil ee ahayee shakigan ku daaweynayaa shuushka gaalada sheekigan ku daaweynayaa shuushka gaalada ee shalmad dhamela toob shanana iyo shulugay iimaanka sharabaada shabagii indhaha lagu shareerayay dharka hilibka wada shaamil ee diintayadu sheegtay shabad xidhatay shay waasiciya shaadirka islaamka oo aan shuruudii ka tegin shaaca laga qaaday waa sharaaf inuu soo kordho shaahid loo yahay waa sharaf inoo soo kordhoo shaahid loo yahay gabdhihii shafkiiyo beerka iyo shirixu ku muuqday ee dirica shaandhada matala shalay ku faanayey haddii aan shareecada la barin shubuh ma da'yeene haddii aan shareecada la barin shubuh ma da'yeene sidii faras shir rabe loo wado shiriisa soo taagay oo shaal xariir iyo taliyo shucubka laalaado sidii faras shir rabe loo wado shiriisa soo taagay oo shaal xariir iyo taliyo shucubka laalaado oo agabka lagu soo sharaxay
sheeda lala yaabo shigshin dumara goortaan arkoo marashu laageeyey iyagoo iswada shaaximay oo shubaya tawxiidka oo agabka lagu shuuriyee sheega wada qaatay shibanaanta aadaabtali iyo shoobihiyo nuurka iyagoo shamaaxinahayo soo shamiray diinta shukri baan raxmaanka u naqaa sheekhada kacay shukri baan raxmaanka u naqaa sheekhada kacay hablaha jidhkoodii shaqlay ee shaasho ka ilaashay shatar iyo xumaan lama tusiyo shuqulka qaarkiie mana shuhaysto kii shiqibahee dumarka sheemaaye mana shuhaysta kii shiqibahee dumarka sheemaaye rug shareeran iyo meel shishoo shimiqa mooyaane inkastoo sharaab iyo agaab shiilan lagu sooroo shaaraca gasiin kuma cunaan shaha kolay tahay shaaraca gasiin kuma cunaan shah kolay tahay shamso hoyatay waa ceeb hablaa shacabka meeraaye shaleemada intay wada galaan kama shirbeeyaane shirhka beledka kama qayliyaan shaaca waa beri shiidhka beledka kama qayliyaan shaaca waa beriye shayaadiinta lama jaalisaan lamana showraane shido iyo xumaan lama tusiyo sheeka baraleeye shalow kama dhacaan hororintay shilinku raacaane sheelow kama dhacaan hororintay shilinku raacaane ragga jidadka kuma shaaqibaan mana shu-aystaane shan kastoo la shuushaamiyo loo shukula weedhaa shilal kuma qashaan bahalladii shanabta dheeraaye shilal kuma qashaan bahalladii shanabta dheeraaye shaadali xabaal loo karshoo laga shallaadayo shirkigiiyo khuraafaadka iyo camalka shaydaanka shifa iyo caruur kama baryaan sheekhiya googo-ay shiifo iyo caruur kama baryaan sheekhiya googo-aye shuucigu hacaayo bidcada fooxa shidataay shuucigu hacaayo bidcada fooxa shidataye shanta faradka kama caajisaan mana sharaystaane shuwaalkiyo sunnaa kama tagaan sheegay nebigiiye jahligu waa shaqaabada markii shabaga loo gooyey shuwariya axsaab bay dhugteen suurada ashilise iyagaa sharaxa aayadaa shaqalka dhaadheere iyagaa sharaxa aayadaa shaqalka dhaadheere ninka yidhi shahaadaan qiray ee sharafka diidaya waa shaamareer iyo amuur laga shisheeyaaye wax badan oo islaam shaabahdiyo sheegataa badane marse haddaan rag shacbug la dhaca shiqibka loo haynin shaksi waliba waa shariya khayr wuxuu shaqaystaaye shaksi waliba waa shariya khayr wuxuu shaqaystaa aada iyo aad baa umahadsantahay. saddex beyd baan kala horreysiiyey o marka maaragtay jahligu waa shaqaabade ayaa ka horreysay shaanigooda kama koobi karo shinka maansada. aada iyo aad baad umahadsan tahay axmedow. halkaas kaga dhaqaajin horta gabaygani wuxuu hiil u yahay gabdhihii xijaabka qaatay ee xilligaa weliba jidhkooda asturay ee u dhabar adeygay dhibaatadii xilligaa soo gaadhaysa. يعني تاريخ قبل يقول حكوا في عياه وحي النجي حلقة وحي جوجي يسدي له أركي حجاب كسوي سووا معناه أو يضبط يعني ماركتي شيطان كده ماركتي وعدوا لها بيجونا شيطان كيصور عين أي عدوا لها لكن هذا أنا ولا جقول استو دتي له صارتها حقي واسعانة يا موقت مت كلام قدر يعني قبل حجابا مركي حقا كصوبح ننكستي وحو ضاني هذا حتى هذا xumaan u jeedo gabadha uu ka bayra waa waxyaabaha xijaabku uu dumarka ugu wanaagsan waaye cumar cabdullahi waa mahadsantahay waxa weeyaan runtii oo soo sheegtay
waxaan ana ku dari lahaa quruxda ka muuqata dumarku markay xijaabkooda ay qaataan ee ay raxan wada socdaan anaha amarkii ilaahay oo la qaatay ayaa kutusaya ayaa qurux ku dhanta shacniga iyo quruxda iyo sharafta ka muuqata ayaad runtii aad iyo aad ugu farxaysaa oo aad dareemaysaa waxaa kale oo gabayga abwaanka ku jirta dhowr soonaanta markay dariiqa marayaan ka muuqata runtii sida dee quruxda badan ee xishoodku ka muuqda ay dariiqa u marayaan oo gabadh markay xijaabka qaadato waxaad arkaysaa iyadoo dariiqa koona ka maraysa waa dhinacay labada midna eegi adaab loo socota dee iyada lafteeduna ku darso oo iyagaa sharaxa aayadaha shaqalka dhaadheer inay dee ahlulcilmi yihiin hablihii aqoon diinad leeyihiin ayay kutusaysaa markaa runtii horta waxaan umahadnaqaya marka hore abwaanka abwaan qorone oo runtii dumarka xijaabka qaatay gabaygiisa ugu hiiliyey mar labaadkana waxaan umahadnaqaynaa dumarka amarkii ilaahay qaatay xijaabka oofiyey ee runtii xaragadooda ku muujiyey amarka ilahayna qaatay ee sharciga dabaqay fariina waxaanu u gudbinaynaa dumarka inta kale hadhay ee iyagu aan xijaabka qaadanin aan odhan lahayn bal idinkuna ku dayda dumarkaa kale oo xaragada ka qayb qaataya sharciga oo idinkuna xijaabka qaato shirkiina astur ayaan odhan lahaa iyagana ilaahay haynoo soo hadeeyo ilahay noo soo hadeeyo insha allahu tacaala waayo cabdallah runtii xijaabka gabaygu uu ka hadlayo dee xijaabka horta sideeda dumarku gaar u yahay oo ragga xijaab lama farin dhaqan ahaana inagu soomaali ahaan markaas dumarka muslimiinta kale laga yimaado dumarkeenu marxalado badan ayay soo mareen oo dee boqorkii iyo dhaclihii iyo maxaan ku idhahdaay maryo kale garayskii iyo duruuc kala duwan iyo shalmad ballaadho la huwada iyo marka bal hadda abwaanka waxaynu weydiin lahayn inuu noo yar sharax cabdullah waynu weydiin lahayn bal marxaladahan kala duwanaaye ay soo martay xaaladaha dumarku ay ku sugnaayeen xagga marka labiska laga hadlayo sharax yaro kooban waxaynu horta dee halkaa malaa intaa way isla wada garanaynaa intaa qaybaha hore dee adaa soo sheegay oo iyagu ku noqosho ma laha xiliyadii dambe dee dadku reer magaaloobayey waxaa aada iyo aada haweenka soomaalidu ay ugu badnaayeen diric wil ah oo khafiifa magacyo badan oo kale waa lahaayo oo magacyo badan bay dheerarku lahaayeen oo kala duwanayeen laakiin beer maqariye marka laga hadlayo wuxuu ahaa diric khafiif ah oo bimacna alkelima aan qofka dumari markay xidhan tahay jirkeeda meel qarsooni aanay ku jirin waxaa kaloo la socotay markaa iyaduna shalmad yaroo iyana saasoo kaloo khafiifaho labada garab sidan uga ridi jireen waxaa iyaduna xilligaa jirtay dowladdii xilligaa jirtay inay haweenka kusoo rogtay hablaha iskuullada dhigtaa inshaar iyo surwaal maca daalika shaarku uu yahay gacmo gaab oo haddii u gacmo dheera inuu soo talato laga jeexo oo laga bartaa macallimka kaga gooyo markaa waxaa xilligaa aada iyo aada u intishaaray oo socday oo lagu faani jiray dood googorad yaroo iyaduna laba waar gebigeeduba ahoo khafiif ah oo googorada waaweyn berigii hore dumarku xidhan jireenoo la odhan jiray macawis googorad macawis ay dumarku odhan jireen markaa waxay ilaa 5 waaro waxay ahayd isu geeyey markaa markay soo ururiyeen dee jirkooda dhan wada qarin jirtay markaa kaas waxaasoo dhan waa laga yimi xiliyadaa in markii seelan dhowr iyo 70aadkii ilaa 70aadkii markii lasoo gaaray aduu 6 wixii kasoo dambeeyey bahalkaa diraca ahee qaawanaanta ayaa alaabtaan kasoo sheekaynay ayaa intishaartay oo aada iyo aada bulshada dhexdeeda ugu faaftay markaa xiliyadii dambe waxaa iyaguna soo yaro kordhay hablo wadaadii ay bilaabeen toob gacmo dheeraah iyo shalmad laban laaba kuwa qudhada waa la dheecayn jiray waa la xidhxidhi jiray xijaabuha oo intaan xijaabkan caadigeena soo gaadhin kuwaasaa markaasa kuwa iyagu qudhada dheeca fara badan waxdadii la odhan jiray noocyadaasay ahayd marka intaasaynu kusoo kolkaa yani xilligaas waa xilligii laga guurayey ee xijaabka ay culimadu dadka maaragtay inta badan la baray ee lagu wacdiyey ay qaadanayeen waxa propagandahan iyo dacayadu soo baxay waa xilligaa waxaad gabayga ugu hiilinaysa waay aad iyo aad baad umahadsan tahay aynu u dhaafno uun gabaygii lixaad aynu nidhaahno axmed caawa kaa hadhi mayno meel aad noo gaadhsiisaba intii alla qadaro waynu wadi doonaa gabayga yaraa tacliinta waay isagoo waa gabay iska caam ahoo dee wakti kasta loo baahan yahay oo
aan la ugu hiilinayo oo ku jeclaysiinaya ardayda afka Soomaaliyeed ku hadasha waxbarashada waayahay gabayga magaciisa waxa la yiraahdaa iftiin way gabayga iska bilaabanayna bilaabi kartaa waay taariikhdu soo baxay beed taariikhdu waxaan filayaa inuu ahaa 790 gaban jaalay saasaan malaynayaa ardayahay cilmigu waa iftiin aadama hagae ardayahay cilmigu waa iftiin aadama hagae waa sida arooriyo shamsiyo ogta waa beriye ambadkiyo wuxuu kaa jiraa inaad asqowdaaye ambadkiyo wuxuu kaa jiraa inaad asqowdaaye marna waa arsaaqiyo waxaa dib ugu aydaaye omos iyo abaariyo adoo bacadku aynfaaday waa guri ugbaadood gadaal ku ilsamataaye waa guri ugbaadood gadaal ku ilsamataaye waana ila dhaqaalo ma gudhaa dhexda jiilaale markay dunidu wada iilantee sabigu ooyaayo waramad irmaanood markaa abid ku maashaaye waa ramad irmaanood markaa abid ku maashaaye marna waa asbaabaha nafluu ku intiqaalaye marna waa awoodaad filka kaga adkaataaye marna waa ilays oo xaqaa lagu ogaadaaye meerna waa ilaysoo xaqa lagu ogaadaaye ummi haddii aad tahay talada waad kaan fariirtaaye halka nolosha laga soo unkee laga abbaarayo isaga indhaha kuu furo ku agaasimaye isaga indhaha kuu furo ku agaasimaye ilaaladan hawada loo diriyo uumiyaha guuray xindigaha agtoodiiyo dayaxa lama abbaareene waa agabka lagu gaadhayaa meelaan la aqoone waa agabka lagu gaadhayaa meelaan la aqoone in muddaa adduunyada qolyahan uu ololeynayey aqoon ee sida maroodiga arbaha adhaxdu waynaatay aqooniyo ismaqal bay laxaadada ku yeesheene aqooniyo ismaqal bay laxaadada ku yeesheene jahligu waa alhuume markii udubka loo siibay afrikada madowba fadhida ilki geerida ee aanada qabiilkiiyo dilkiiyo eelkan bixi waayey isaga waa baa fakriga aqalkan u yaale isaga waa baa fakriga aqalkan oo yaale ha yeeshee waxay eedaybaan ku akhri ii qaare isticmaarku waa ulaada waa abab xumeeyaye inankii gumaysigu afbaray aamin noqon waaye inankii gumaysigu afbaray aamin noqon waaye anfac male aqoontaad filkaa ugu adeegtaaye afka iyo hiddaha waa nacaan saad u aragteene ogobey anaaniyada iyo gaalisu ekayntu waa waxaa addoonaga dhigiyo awr la dhaansado waa waxaa addoonaga dhigiyo awr la dhaansado intase oroba laga maamulee loo arriminayo ee haludiinkiiyo waxyiga la asaraarayo ee diinta laga ooman yahay taalaagaheenna afada jirta waa midaan abid dhammaanayne fada jirta waa midaan abid dhammaanayne haddaad se adigu edab yeelato buugga ku egaato aada macallinkaaga aqbasho ood waalidka adeecdo adigoo islaamaad cilmiga ururin doontaaye inamiya gabdhaba waxaad tihiin u dhowaan baxaye ogow qalinka duulkii umii marad beelaane ogow qalinka dumad jaahili abid maraystaan waayahay cumar waata cabdallah runtii dee gabaygu isagaaba siraxayo gabaygan iftiin
runtii isagaaba sharaxaya oo dee murtida ku jirta qof kastoo af soomaaliga fahmaya wuu kala soo bixi karaa baan malanaya haddaynu wax ka tilmaano laakiin bal beydkaa ka waran inankii gumaysigu wax baray afbaray aamin noqon waa waxay kutusaa jiilkii hore ee imika gabayadii horena ku jirta inu ka cabanayno maamuladii iyo magaranaysaa dhibaatada ay ka timid nagaga timid beydkaasaa si kooban inoo tusaya waxa laakiin nasiib wanaaga jiilka maanta jooga inay ka nasiib badan yihin kuwii hore oo shareecada islaamka wax badan ka fahmay aada moodo inay wax runtii ay wax ka qaadanayaan marka waxa kaloo kutusaya dee gabaygu wuxuu kutusaya tacliintu inay tahay wax qofka raaca oo la socdo oo meeshuu joogaba macnaha hanti la socoto qofka oo magaranaysa aan ka hadhaynin waxa kale oo iyana xusideeda mudan waxaan xasuustay sheekh kamida culimada waaweyn ee islaamka oo la idhaha ibnu qayim ayaa markuu cilmiga ka warramayo waxyaabaha cilmiga ay ku kala duwan yihiin iyo maalku ayuu ka hadlaa markaasuu deetana wuxuu keenay ilaa 40 qodob buu soo dhigaa 40 qodob waxaa kamid a idhaa cilmigu maalku wuxuu u baahan yahay inaad adigu ilaaliso laakiin cilmigu isagaa ku ilaalinaya oo maalkii waxaad haddii aad ilaalin weydo oo aad daba socon weydo dayacmaya laakiin cilmigii isagaa gaarkaa hayo oo isagaa ku ilaalinayo askari ku ah wuxuu idhaa waxa kamid a maalkii waxa weeyaan haddii aad bixiso wuu nusqaamaa laakiin cilmigu markaad bixisaba waa sii siyaada meele siyaada caawa haddaad cashar dhigto waxa laga yaaba intii aad ka taqaanay in kale kaaga sii magaranaysa aa korodho dad kalena waad u biirisay cilmigii ka dhiganta haya cabdalle waa sidaad sheegtay oo marka hore gabayga wuxuu nagu tusaaleynayaa aqoonta halka lagu gaadhay iyo faa'iidada ay leedahay ayuu guud ahaan inoo tilmaamayaa laakiin aqoontu haddana wuxuu ina tusay aqoontu inayna ahayn sida aad sheegtay indeed af gaal baan wax ku bartay cilmi gaal baan bartay oo gaalkiida aad ugu shaqayso sida u fikiraya aad u fikirto inay aqoontu sida ahayn weel wax lagu shubtay aana noqone aad noqotay mid dadkiisa iyo diintiisa iyo ummadiisa ugu intifaaco wax ugu tara ta kale axmed isagu waa gabayaa oo soomaalida raggii hore gabi jiray amba wax alifi jirayna aqoonta kamay hadhin iyaguna oo aqoon la-aani waa iftiin la-aan ayay hore usoo yidhahdeen dadka ugu baraarujinayaan iyagoo le inay dadku ay wax bartaan waa aqoon la-aani waa iftiin la-aan waa aqal iyo ilis la-aan ayaan ka xasuustaa kelmadihii u odhan jiray allah unaxariiste cabdullaahi qarsh marka nin kastoo gabayaa dee caqli ilaahay siiyeba xilligiisa waxbarashada wax ay tahay iyo faa'iida ay leedahay sidaasuu ummadda ugu baraarujiyaa waayahay bal haddeed waxaan u malayn gabagaboyaan haddeed ku jirnaa waxaynoo hadhay noogu dari hal gabay oo wiilkii yaraaye aan dhalay oo aan yar baydhbaydhay aan ku waaninayey aan isleehayna tacliintan aan ka marnayn allahuma salli calaa maxamed kolley waalidkii ubad dhalayna waxaan filayaa inuu hawlaha aniga iga haysta ninkaas hawlahaas oo kale inuu isagana ma garanaysaa adigu yar baydhbaydhay wiilku dabeetana in badan baan waaniyey adigu waxbarashadii uu ku yaraa sigsaagay rakaab xunxuno uu la xidhiidhay noocyadaas markaan in badan af soomaali kula hadlay baan balgabayna ku day markaa gabaygan yar isagana allaha ku anfacay gabayga dhalaan baanu bixiyay dhalaan anu dhow fogeyna waa ayaan dhow dimka malaha ilaa 5 bilood meelaha ka hor filaya inuu ahaa 29 kun waxaan leeyahay 2001 buu ahaa waaye marka waxaan kusoo warinayaa gabaygaas silsiladaynu soo wadanay gabaygaa dhalaan ayaan kusoo gabagabeynaya caawa haddii ilaahay idhaahdo wixii ka dambeeya sidii alla ka dhigun bay noqon doontaa laakiin waynu isku day iyagana inaynu intii tamarteenna ah aynu halkaa kasii wadno waxaynu duubi karro ee aynu isleenahay ummadda ayay nacfi u leeyihiin dadka iyo diinta iyo dalka waaya cabdiow dhallaannimadu waa dheelal oo kale e cabdiow dhallaannimadu waa dheelal oo kale e dhalanteedka maatidu marbay dhab u malaysaaye dhugan maysid waayaha dhulkiiyo dhowrta kula taale
dhuugaan maysid waayaa dhulkiyo dhawrta kula taalle dhandhabba lagu hallaabaa jirto dhagari hoos taalle dhallinyarada qaar kula da-a oo dhoohanbaa badanee dhanka gaale layskuma dhajiyo dhooba jiifyada dhengagaale layskuma dhajiyo dhooba jiifyada dar kaloo shareecada dhigto dhuuxaba badane hadba kii ku dhacmaa qalbiga lagu dhaweeyaaye markaasa dhagaaloo furaa weedha ka dhimane meerkaasa dhagaaloo furaa qeybta ka dhimane dharkayn iyo sun lama dhuunyadiyo xabag dhunkaaleede dhanna kuma wanaagsana kuwa dhaqan wadaagtane haw dhuran dhafoor xiirada dhaxa laylkiye dhuran dhafoor xiirada dhaxa laylkiye laftan dhabarka haysiyo gacmaa dheefta lagu quuto waxba u dhiman dharaarahan logii dhiibsanaan jiraye dhudhumadu tallaabada laxaad uma dhaqaqaane dhudhumadu tallaabada laxaad uma dhaqaqaane dheeldheeli baan ahay sidii laandhow aan baxay dhuunigu qadhaadh buu barhkii dhadhamayaaye madha koolo leyl dhexe markaa dhagida jiiftaane waxaan ahay nin dheelimanayo dhowr xanuun qabay waxaan ahay nin dheelimanayo dhowr xanuun qabaye dhabta maraad ku jiiftiyo haddaad sare u dheeraatay dhibmaad arage waxaan kuugu siday dhiilkacaa dhiishacaan ahee dhiilkii aan kuu buuxiyaad weli dhammaysaaye dheebta maraad ku jiiftiyo haddoo sara u dheeraatay dhibmaad arage waxaan kuugu siday dhiishacaan aha ee dhiilkii aan kuu buuxiyaad weli dhammaysaaye waxay hooyadaa kuu dhigtaa dhuuni gooniyahe dhaxantiyaad u aroortii markaan dhadeeda jiidhayo waxaan adiga kaa dhowrayaa dhiifta gaajaday waxaan adiga ka dhowrayaa dhiifta gaajadae ha yeeshee dhawaaqaan ku idhi kuuma dhaadhicine dhaldhalaalka waagay ardadu dhagac ka siiyaane dhurwaagaa habeenkii ciya oo gama dharaartiiyeen hurda kama dhargo sow maruun dhab uma falootid dharqashada cilmigu waa halkuu rag isku dhaafaaye dhalandhoolka jilaaladoo dhammaasan oo liita waa dhool hilaaciyo xareed dhaanka loo raro ee baddan dhumucda weyn iyo beriga dhayda laga maalo ogow dahabka laga soo dhuriyo dheemantiyo luulka dhaayuhu ma koobeen haddaan qalin ku dhehnayne dhaayuhu ma koobeen haddaan qalin ku dhehnayne gantaalahan dhuyaalee dhacmeed dhamacda moodayso iyo qalabkan dheeraynayee dhaaxa lala yaabo dhaayuhu ma koobeen haddaan qalin ku dhehnayne dhakhtarada wadnaa kala dhilaa ee dhiiga kala shiilaayo qagabkan lala dhaygagee iyo agabkan lala dhaygagee dhoor ku nagu daalay ee dunidii koob qudha ka dhigay dhalan wanaageeda dhaayuhu ma koobeen haddaan qalin ku dhehnayne dhaayuhu ma koobeen haddaan qalin ku dhehnayne waa waxa dhaqaala unkee dhaaba aadmiga ee dhulka oo abaarsaday haddaad dhereg ka soo weydo isagaa dhabbada kuu sahliyo dhoofka dabadaaye dheeldheel wakhtiga kaaga tegay dhiilla kugu reebiye cishadii ku dhaaftana waa dhaawac kugu yaale abow wakhtiga hayska dhumin yaanad dheeliine abow wakhtiga hayska dhumin yaanad dheeliin halkaasaynu ku gabagabayneynaa habeenkan caawa ah wabilaahi tawfiiq wixii ka odhanaysa aad iyo aad baad u mahadsantahay axmed
horta gabaygan qudhiisa waa gabayada culculus buu ka mid yahay. horey waxaan u maqli jirnay maanse loo tiriyo waalidka matalan hooyada kaalinta ay kaga jirto yani oo nin rag badan oo gabayaayo hooyada iyo maaragtay si usoo korisay iyo dhibaatadeedii iyo waxaabay ka hadleen iyo ammaanteeda. imika waa waalidkii oo ilmihii la hadlaya gabayga axmed oo ilmihiisa yani inankiisa keliya kuma koobne dhalaan caruurteena oo dhan caruur oo dhan waalidkii ilmo dhalayba ilmihiisa nin ilmihiisii la hadlaya oo kale iyuu u yahay. markaa dee adiga arki dee bal hadda maxaa adna kaaga soo baxa. horta waxaan leenahay ninkii gabaygan loo tiriyey ilaahay ha ku anfaco laakiin waxaa runtii la ka faa'iidaysan doonaa dad badan oo kale oo waalidiinta ka tirsan. haddii aan abwaanka su-aal ka weydiiyo ma u gudbisa ninkan horta gabayga waa u gudbiyey waa u akriyey haddii aloniga ciwaan yaroo bogos yar u leeyahayna waan u geliyey isagoo duubanna waan dhegeysiyey. aad baad umahadsan tahay axmed. waana runoo ilaahayna dhammaan caruurta inoo hadeeyo dariiqa toosanna ilaahay inagu soo rido. aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay. caawa halkan ilaa 7 gabay iyaad xaggan noogu soo qabatay. waa cajaladii labaad ee aan halkan studio alxuseini aan ku qabano oo gabayadii axmed colaad qorane ahaa. waxaana filayaa caawa inaan halkaa kusoo gabagabeyno haddii alla idhaah. waxaan u wareejinayaa cumar si uu inoogu soo xidho barnaamijka. cabdalla waad mahadsan tahay. daawadayaal iyo dhegaystayaal madasheenan oo ah madashii labaad oo marti sharafka koowaadna uu ahaa axmed colaad digaale qorane iyo cabdalla xaaji cismaan oo barnaamijka qeyb libax ka qaatay, xuseen nuur axmed oo kamarada inoo hayay, iyo aniga oo cumar maxamed maxamuud. madasheena tan ku xigta ee saddexaad intaynu isugu iman doono waxaanu leenahay dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.